kala duwan ka jeedinaya jaamacadaha dalka oo kolba jaamacad ku marti qaaday maanta inaga marti noogu ah. Bismillahir Rahmanir Rahim. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب وهو أصدق القائلين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقل في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هذا في القرآن الكريم كإله أسيس محمد يوسف وآيسه فاوندر كجامعة نيو جنريشن. lecturer كنا أحمد nin aad loo wada garanayo oo hadda ka hor Soomaaliya ay ku xisaabtanta hadalkiisana sanad walba la isku beritoole ama saacad dambana aan rajeynayno sanad walba programka Soomaaliya ay kaga hadlayso sanadka cusub in uu bari ma saacad dambe uu ka hadli doono haday fursad u yeelano sidii loo bartay caadada nooca midaasi waxa ay na tusaysaa muga uu leeyahay ama in uu nin qaran nin bulshada inuu yahay muhiimada uu noogu yimid waa in aynu inagu aqoonta Ilaahay ilhaaminta u siiyay aynu ka dhaxalo ma aha mid cid kale ka soo jeeda ma aha mid tilmaam kala wata laakiin professor keena Ahmed Ismail Samater waa nin inaga soo jeeda oo inaga oo aynu sugayno tilmaamta fiican ee dhaxalgalka ee uu leeyahay ee ilhaaminta leh aqoonta leh ee dhaqanka caalamiyeed ee adduunka uu kula macaamilay in laba eray iyo saddex eray oo sadaqa inoo noqdeen aan isaga ka helo Ilaahay isagana cimri dheer hasiyo sida uu noo sharfay uu noo cizeeyay noo qadariyay isaga Ilaahay ha uu cizeeyo ha uu qadariyo waxaan aad ugu faraxsanahay maanta ardayda jaamacadda New Generation in uu guest lecturer uu noqdo inaga oo aanan anagu ka rabin in ay noo noqoto advertisement laakiin ay noo ahaato dhaxalgal aqooneed aqoontiisa waxa uu inaga siinayo fursadna inoo ah saacadaha uu ina siinayo isaga oo ay ku yar tahay in aan ku xisaabtankeeda aan yeelano hadalka inaan sii dheereeyo ma doorayo maanta maadaama oo ay maalin farxad weyn oo gaar ah inaga inoo tahay aad baan ugu mahadsantiin dhammaantiin kadibna su'aalaha oo aynu ku salayn doono in si cilmiyeysan soo koobi doono ayaynu hadii Ilaahay ka dhigo in weydiin doona inta uu lecture ku socdo waxaanu si sharaf la aynu idinku codsananaa in aynu dhowrno deganaanta oo aynu dugano waayo fursadan in badan aynu raadinaynay maanta waa professor Kenny buu Ilaahay halkan noogu keenay marka in ka faa'iideyso aan hadii Ilaahay ka dhigo وان إذا سلام يا دمانتين بقى سلام نما كفردة سومالي نما كفردة سومالي لان نما كفردة أيام دكتور سلام يا وحن دوني إن نم هذا نقو أبوريه جامعة عدن NGUC سوما in New Generation of course University in عبد العزيز محمد يوسف ومهدنقه أيام دوني أن كبر لعبه وكامبس كهرجيسة وأنا وجه كامبسي كلينا جيران كهرجيسة أنا ومهدنقه and وحكوا قرن بروشور ك وربحين تعد بحسان جامعة اللي جاب بحيو إن أي نقطة همدنا أي تعين لجسي ديجو حرون of excellence yeah center of excellence حرون قروح ذا aqoonta u noqota meel saldhiga jaamacad walba way isku daytaay la sheegato oo wax jaamacad walba ay ku hamiyeyso inay yeelato sida loo barto laakiin de wax walba saan bay leeyihiin lagu garto inay dhab tahay iyo in kale even haday mustaqbalka tahay waxaan oo imika la joogin laakiin ay tahay maxaan ku raayay xidigta lagu guuray haday tahay oo waqti badan qaadan doonto saan calaamooyin bay leedahay inay dhab tahay iyo in kale socodka dheer ee la gelayo marka aan durba calaamad mid waan arkay xalay markii la keenay waraaqaha iyo casuumada waan arkay waan akhriyay waa jaamacado badan baan ka hadlay
إلا أي مكان هرجيسة وان كهذلي جامعة هرجيسة بلارن آدمز وان كهذلي آدم يونيفرسيتي آدمز يونيفرسيتي غوليس يونيفرسيتي ميت كلام مثلا كبحنا ميت كلام كواكلو برعي بورمي عمودي لوكاس. But this is the first one. This is the only one. What you worry? And كهلو ورقة professional أو قرن أو عسومة دكو قرنته. أنت كلا قلبي وين وناكسن يسود وين وناكسن يس بقول كيف بقول. لكن الدين السر لو قد رقمه وحوجه رسوا حوي هدي قف وكوي ما نيو ليش دونا بقى كيما ده ما هو نحمد سنة. لأن official letter of invitation وسأنا نقول فايل كوجا شدد ده وأنا قاعده وهذا ودان دون إن لحد يرد وحن هايستر ريكورد ما وقته. لكن هذا النقطون هنوي ما نينا نكاس والبروفيسور كهنوي ما ده هنلاح الله هذا ما الله راح. So that's a mark of excellence in professional ولبس سي professional لغة إنجليزية جوان أجي واستحسنها إنجليزية جي هذه عبد العزيز أمهاتنت هاي هذه جو صافي فضل الشقيسان هاوشنا وصلنا كسر ولا جم مارمان واحد كلام دون إن هل كان وجم هذا نقوة أنا كدالين دينا هذا نقوة يجا مسؤول isku hagaajinta iyo hawlahan iyo wax oo dhan aniga ila socdo goor walba oo ugu horeeyo wasiirkii Cabdilaahi Geeljire ugu horeeyo inaan u mahadnaqo ayaan jecelahay saaxiibnimadiisa walaalnimadiisa iyo hoggaanka taanu isagu jirin socodadani badankoodu may suurta galeen walaalkay Ibrahim Aaye oo nin macallin ah waliba xagga xisaabaha iyo statistics alaabta aad ugu wanaagsan jaamacadda Michigan la yiraahdo jaamacadaha ugu waaweyn adduunyada ma aha Mareykan ugu waaweyn adduunyada Michigan University library dad ka caawa gal oo Google gal oo Michigan University waa one of the greatest universities in the world not just in the United States halkaas isagu ka soo qaatay language statistics ka soo qaatay macallin buu ka ahaa wadankii Soomaaliya Mareykan in badan buu imika joogo macallinka ahaa macallimiinta supervisor buu ahaa haddana waa consultant halkan jooga oo xagga waxbarashada sida loo dhisayo jooga ka Ibrahim shaqo badan buu geliyay waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo walaalkay Abu Bakar Hamid oo ninka dhexe shaarka wata cas pink shirt not really red pink shirt oo naga dhalinyarsan sad wajigiisa ka arkaysan inkastoo daada wajigiisu qariyo oo aad yani talaabo walba saacad walba halka la joogo baabuurkii dadka loo tagayo sida loo soconayo waxa soo dhan soo dejiya almost like a chief of staff noqday aad buu mahadsanyahay waa nin isagu dhulkan wax bartay Mareykanna muddo badan imika joogay Holland markii hore ku horeeyay halkan Hargeysa wax ku bartay markuu yaraa business xoog leh ku leh Minneapolis magaalada la yiraahdo Soomaalida ay badan tahay laba business oo waaweyn buu ku leeyahay halkaas family-guna halkan ay degan tahay la booramo oo ay xoolo dhaqato ay wax badan maal abuurto marka waa nin noocyo badan leh oo karti leh turubka siyaasadda wadankana wax ogaa ku dhex jira baan maleynaya marka aad buu mahadsan inkastoo aan ogahay professor markaad siiso waqti in aanan hadalka ka dhargin professorada halka kama dhargaan kelmadda la yiraahdo professor waxay ka timaadaa kelmadda la yiraahdo professor waa the person qofkii safaha professor laakiin kelmaddu waxa weeye to profess na waxa weeye hadalka siida hadalka siida sida faraska soo garmaysa marka jadalka lagu dhuftay la siida isha ka reeb la siida faraska roma waa sida hadalka siida farasku ha ordo marada professor nasiiso hadalka siida ya goor soo noqon doonto farasku lama ogade waa iska soconaysaa xawooda soo hadamada laakiin waxaan ku dadaalay inaan soo xakameeyo xogaa aan soo ururiyo dadana ay su'aaliyo kalno wixii wax kale
dialogue ina dhex maro inuu iskala faa'iidaysan waxa la yiri topical leadership-ka hoggaanka ka hadal haddii hoggaanka marka lagu xidhi karana arrimaha adduunyada international affairs iyo diplomacy inaynu isku dayno haddaan isku qaban kari waayo labadaana marka su'aalaha ay ka soo bixi doontaa mar labaad baan isku dayay inaan sameeyo laakiin waxaan jecelahay xoogga inaan saaro hoggaanku wuxuu yahay hoggaan leadership ama jaamacad ha noqoto amba wadan ha noqoto amba adduunyada ha noqoto ku fiicanaan oo kale de secretary general of the United Nations oo anu jaamacadda aan diinka ka soo baxay arday ka ahaan jiray sidii noo kale laakiin aniga wiiga anu macallin ma noqon wiiga weeyay laakiin boardku ku jira institute-ka aan diinka ka ah boardkeedu ku jira waslada ugu horeysa arrintan hoggaanka waxaan doonayaa inaan idin sheego oo idin la ogaataan at least inta caawa sheekadayna galabtayna dhex maraysa oon ku horreysiinaya thesis-ka ugu horreeya in idin dhiibayaa waxa weeye hoggaanka waxa la yidhaahaa noocu doonaba ha noqdee waxa weeye wax bini aadamku meel kastaba ha ku noolaa cidduu doonaa ha ahaadee had iyo jeer hor timaada oo aan laga baxsan karin you can't avoid issue-ga leadership markay noqoto ummad waliba iyo dad walba amba ha yaraadaan amba ha ballaadhnaan qoyska family waa inay leadership yeelato hoggaan inay yeelato haddii kale dee carruurta iyo hooye aabba way saddex yaaco wixii oo dhan baa kala daadan oo mijiyo madax ma kala laha marka arrinta hoggaanku leadershipku waa necessary for all societies all the time cid walba iyo goor walba waa arrin taagan cid ka fasax qaadanayso oo uma baahnin dee qof baa laga yaabaa haddaad kelidaa tahay laba qof haddaad tihiin waa in la tashadaa dee qof oo markaa arrintii hor socdaa laba qof haddaad tihiin maybe haddaad kelidaa tahay inaad ka baxsan karto oo kolba sidaa doontaad yeelayso laakiin haddaad laba qof tahiin iyo wixii ka badan dan baa isku kin xidhay dantii waa in la helaa si looga wada hadlo iyo qof fuliya waa in la helaa marka leadershipku waxa weeye wax taariikhda bini aadamka weligeed ku soo jirtay imikana ku jirta weligeedna ku jiri jirta dee ilaa qiyaamaha waqtigeega marka laga gaaro marka cid ka baxsan kartaa ma jirto dadka aan fahmina waxay tahayna marka dambe boqolay way kufaan oo boqola aan loo baahnayn bay ku dhacaan oo way jajabaan oo ma soo kici karaan dhulka dagaalada civil wars ay ka dhacayaan caawa civil war wax ku dhooba Southern Sudan ee ka socda dad badan baa dib ku dhigay waxyaabo badan baa keena laakiin waxa xunduro ah leadershipkii inay wadankii ka badbaadin kari weyday in dagaal uu ummadii dhex maro inana way nagu dhacday jamhuuriyadda Soomaalida way ku dhacday ilaa maantana meelo badan bay ka socotaa oo dadkii la kala hori kari lahay way leadershipkii ayaa kartidii aan lahayn oo ka soo bixi weyday marka meel walba way tahay maalintay leadershipku hadday ka jabto amba aad garan weydaa dad ummad tahayna maalintaasay bilaabaysaa balaayiye baas maalintaasay bilaabaysaa maradaad ku gugubatay ayay noqonaysaa so it's very critical in la fahmo dhalinyaraduna inaad aad u fahamtaan waa important oo aad imika fahamtaadaydaan sugin markaan bidaar iyo ciro yeeshaan ka fikiri doonaa waa mar xeerad iyo furnaalka ay kala dhaceen haddaad waqtigaas you have to think about it now si aad uga qayb gasho in la hagaajiyo leadershipka wadanka walba waqtiga taariikhda la joogo jaamacadaha weeye meesha had iyo jeer arrimaha lagaga doodo ee deetana sida nuurka u soo gala ummadda inteeda kale dadka idinla da'diina aad bay arrimaha ardaydeedu 24 saacadood arrimaha way ka hadlaan ururay leeyihiin oo ku saabsan arrimaha leadershipka talada jaamacadda waxbay ka gooyaan markay dhamaystaanna dee arrimahaasay galayaan amba ha noqoto baayac mushtari amba ha noqoto caafimaad amba ha noqoto engineering meeshay doonto wuxuu doono qofku ku shaqaysto laakiin inuu ka qayb galo arrimaha ku saabsan leadershipka community-ga uu la degan yahay amba gabadhu ay la degan tahay ee localka ah national local imika waxay noqonaysaa Hargeysa oo kale national waa Somaliland bay noqonaysaa globalna de waa adduunyada so local national global saddexdaba waxa loo baahan yahay dadku inaad fikrada la yeesho waayo dadkii localka uu ku urura ee nationalka reer Hargeysa aanu nahay amba reer Burcaan nahay oo intaan lagu ururo ma soconayso baabuurku marka dambe uu xidhmaya oo de isma fahmayaan de reer Burciyo reer Hargeysa reer Boorama iyo reer maxaan ku Laascaano isma fahmayaan marka localku waa inuu noqdaa waa inuu localka indhaha lagu hayo laakiin waa inuu nationalka ka war hayo national hadda tahay waqtiga age of globalization oo in internetka meel bay idin taalana waxa adduunyada ka dhaca markiiba way ku taabanayaan
ويتابعني الناشنال يا دولار قيمه سو هدو هوس دحو هدو كور دحو عاو بريت الصبح ريهر دي سوي اوغلي dadka baa mashtar immediate qofka gaaska stationka iibinaya ayaa garanaya marka waa inuu haduu hoos u dhacno waxa laga yaabaa inuu kor qaado haduu kor qaado inuu hoos u dhigo laakiin waa inuu eega waayo qiimaha batroolku wuxuu ku xiran yahay qiimaha saylada adduunyada ayuu ku xiran yahay markiiba ka soo baxaysa marka global national iyo local anu diin jaamacadan ka ahaa institute-ka ballaaran waxa way saddexda kubadood bayn la ciyaarayo goor walba we think about the local magaalooyin labada magaalooyin ku nool 2 milyan iyo bar qof baa ku nool twin cities waxa ka jooga in laga fikiro oo laga doodo oo dhaqaalaheega noqoto siyaasadeeda ha noqoto caafimaadkeeda ha noqoto hawlaha de waaweyn but at the same time wadankii continental United States wadanka Mareykanka waxa yaala isagana had iyo jeer inaan ku hayno waayo waxa wadanka Mareykanka intiisa kala ka dhacay 310 milyan baa ku nool wadanka Mareykanka waa wadan ballan waa wadanka saddexaad ee adduunyada ugu dad badan number 1 waa China number 2 waa India number 3 waa United States in national de waana wadan adduunyada oo dhan faraha ku haya marka wixii wadankaas uu sameeyay cid walba way taabanaysa taana in indaha lagu hayo iyo global anu diin baan ahaa diin of the global studies maartay in laga warhayo dhaqaalihii adduunyada iyo siyaasadii adduunyada iyo hadii meel crisis xoog leh ka dhacan iyo dagaal haday dhacay waxaas oo dhan laga warhayo soo tamaad marka waa saddexda mas'uuliyadood ayaa meel walbana leadershipkaas marka waa mid aan laga baxsan karin laakiin waa waslada labaad tii hore waxaan idin qof wadan iyo ummad ka baxsan karaysa ma jirto haday ka baxsatana way hoogi oo madaxuma isla dhicide oo madow soo damad waa waslada hore waslada labaad waxa weeye second cut arinta hogaanku waxay aad iyo aad u tahay mid ayna ka baxsan karin oo waliba aad u sii culus waxa weeye wadamada soo koraya developing countries wadamada soo koraya wadamada soo koraya waayo wadamada soo koraya waxa ka horeysa oo hor yaala safar dheer dhaqaale dhis siyaasad dhis technology dhis school jaamacad iyo high school iyo all the educational process sida loo dhisayo wadooyin sida loo dhisayo furdada sida loo dhisayo airport sida loo dhisayo de adduunyada dhan sida loo dhisayo that's why they are developing countries waa wadamo soo socda wali ma safarkoodii wali ma iman way waxa soo dhamaan maqan marka iyaga wadamada soo koraya ay wali aad iyo aad ugu tahay necessary inay ka fikiraan arinta hogaanka iyo leadership way haday taas ka xamaato waxa soo dhan ma yeelanaysid badii farsamadeedii aad ku fahmi lahayd inta inay ka maqan yihiin iska daa adigoo wax ka qabto oo strategy oo sameeyo third cut waslada saddexaad waxa weeye wadamada adduunyada ugu faqiirsan developing countries marka way badan yihiin waxa laga yaabaa haday 210 wadan jiraan waxa laga yaabaa in ugu yaraan 180 ay yihiin developing countries oo wadamada hore u maray tiradooda haddaad eegto OECD Organization of Economic Cooperation and Development for example haddaad eegto waxa laga hadlaya waxaan ahayn 220 wadan baa laga hadlay maximum 30 countries ya dad 200 googo inta ka goyso waa 170 in ka badan baa wadamada soo koraya laakiin de wadamada soo koraya wala kala sarsareeyay koorka wala wada gashin yahay in la soo korayo laakiin dad bay araabo kale uga dambeeyaan dadna intaas un bay haystaan koorka qura ay haystaan maalintu qoyo amba si kala noqdo meel kale ma jirto that's the only one you have qaarna wa Soomaaliya Djibouti wadamada Soomaalida ay ku nooshaan waa wadamada ugu liita adduunyada they are the least developed countries in the world now taasi ceeb maha waxa weeye waqtiga aan joogno sidaynu nahay ceebtu waxa weeye haddii taa la fahmi waayo oo wax laga qaban waayo that's the scandal ceebtu waa tan laakiin ta wixii taariikhdu ay ku dhiibto ya turubka ay taariikhdu ku dhiibto ad shaqo adigu kuma leh waa lagu dhiib laakiin sidaad ugu ciyaarayso turubka sidaad ugu ciyaarayso ayaad ugu shaqo ku leedahay si ay u bedelanto turubka loo dhiibayo kuwa ka dambeeya iyo adiga kuwa ka sii dambeeya si waxaas hadhowta ay u bedelaan oo dibetana adu noqoto not least developing country but more developing country oo kuwa dhexe ku soo biirto aad socoto wadamada adduunyada Mareykanka ugu horeeya maantana taariikhdooda wada caynka
maraykanku marbuuha wadan aan jirin literally aan jirin dhulku uu jiray dad baa ku noolaa Hindiya oo waxoogaa oo iska sida dadkeenii hore iska ahaa maxaan ku lahaayay pastoral dad iska reebaadiya oo farda iyo xoolo yar ee dhaqdo iyo caynkaas uu jiro 300 sanadood hadda eegto harli maraykan wax la muujiyo maantana meel allaaliyo meel fartiisu aanay ku jirin ma jirto including Somaliland soo adaynakum baan ogeyne soo adama garan uu ka warhaya soo ad garmays diyaaradaha u socda iyo satellite ba u socda hargeysa waxa ka socda oo warka diraya we can see them soo ad garmays marka wadan walba taasi way haysataa laakiin wadamada aad u liita the least developed country oo inoo ka mid nahay waxay u sii baahan yihiin waliba hoggaam garta taas iyo socodka dheer ee degdega ah ee la galay caalam inta la taagtoon aan la oranayn okay waa waqtigii bariiska la cunayay caalankana loo saacabinayay la yara qayilayay deetana la iska yar sheekaysanayay halka inta waa iga hordhac arintii markaa hoggaanka aan u galo waxa uu yahay hoggaanku laba doodood ayaa jira marka laga hadlayo hoggaanka labada doodoodna way soo jireen in fara badan academics-kana markaad eegto ee ku saabsan stages-ka laga sameeyo baarida laga sameeyo cilmi dhiska arrimaha ku saabsan hoggaanka leadership-ka laba doodood ayaa iska soo horjeeday muddo badan mid waxa weeye doodoodanaysa waa complicated marka waan soo gaabin oo soo yarayn khafiifin waxa weeye wax la yiraahdo structural argument waxa weeye doodaasu bini aadamku waxa uu qabsan karaa aad u yartay taariikhdii qof dadkaas ay dhaxleen iyo maqaadiirta ballaadhan ee imika agtaala ayaa culus oo shakaal ku ah waxay qabsan karaan waa in yar wax badan ma qabsan karaan ya waayo taariikhda ay dhaxleen iyo waqtiga maqaadiirta waqtiga ay joogaan waxay ku nool yihiin ayaan u ogolaanayn in ay siday doonaan yeeli karaan structural argument way taas iyadoo soo kaab taasi waa mid dooda kale next thought argument waxa weeye maya waxa la dhaxlo iyo waqtiga la joogaa waxa uu dadka bado way culus yihiin laakiin waa laga adkaan karaa aan sida runta ana qofka bini aadamka amba ummadaasi waxay haystaan margin ya meel badan oo ay sameyn karaan waxay doonayaan so more freedom taware waa determinism way taariikhdu way xidhan tahay bad waxaad sameyn kartaana way yarta tanna waxay ku leedahay maya taariikhdu way furan tahay wax badan baad sameyn kartaa haddaad fahamto maqaadiirta iyo waqtiga aad joogtaa haddaad fahamto so more freedom determinism and freedom labadaa doodood laakiin labadaa doodood labaduba caqliga aad u galaya oo de maanta caawa intaan seexdo berita soo toosan idhaaho okay waxaan jeclahay inaan 5 sanadood Somaliland ay noqoto wadanka adduunyada ugu qarisan dadkeeguna ugu aqoon badan yihiin ugu wada caafimaad badan yihiin waxaan intaan berita soo toos try it waxa ka hor imanaya garanaysa immediately oo structures baa jira dana dhaqaajin karin laakiin haddaan idhaaho wax allaaliyo wax laga qaban karaa Somaliland ma jirto ya wax laga qaban karaa ma jirto ya oo there's no hope waayo waxaan oo dhamay way xidhan yihiin taariikhdii bayna xidhay waqtigan waxay naag yeelo waxba laga qaban karo de taasna waa qoos weey marka taasna wax soconaya ma hadday sidaa tahay de we might as well all commit suicide what's the point of living so ma inta la yiraahdo waray sidii Jim Jones and kuleelka cabnaa on خلاص it's all done taasna ma soconayso de ilaahay baa inna cafinayntay haddaynu sidaa u qoosan so labadaas sida la iskugu keenaya dan becomes the question labadaas sida la iskugu keenaya waxa la iskugu keenaya waxa weeye nin loo oran jiray Karl Marx baa arinta bari hore ka hadlay oo si wanaagsan u dhigay wuxuu ku leeyahay men and women rag iyo dumar make their own history rag iyo dumar taariikhdooda way samaysan karaan they make their own history waa agency question freedom question rag iyo dumar hadday gartaan waxa hor yaala ay darsaan way samaysan karaan wadooyin ay ku dhaafaan oo ay taariikh ku samaystaan cusub and we have done that in Somaliland
haddii kale dee somaliland aan imika hadal hayna may jirteen dee haddaan dad intay isku tegeen aanay odhan waan samaysan karnaa. Men and women make their own history. waa qaybtii hore free markaa waa freedom taas. But buu ku leeyahay laakiin waa badkuna waa big B odd jeer big B but they don't make it under circumstances of their own choice. taariikhda kuma samaysan karaan iyaga oo duruufaha ag jooga ayagu kala dooranayaan duruufaha ag jooga. duruufaha qaarkood baan ku ogolaanayn inaad doorato sidaad doonayso, but they don't make it under their own choice of their own circumstances. in iyagu doortaan duruufaha ma dooran karayso, laakiin waxaad awood u leedahay haddana inaad taariikh cusub furto. waynu samaynataan waa la kacay waxaa la yidhi waxaan inama qabanayso dictatorshipkan ma ogolaan karno. Somaliland amba northern Somalia British Somaliland markii la isku biiro waxay noqotay daabeeda laga guuray wixii oo dhan waa turka oo dhan meel kale loo qaatay dagaala waxaan ma qaadan karno dad inaga mid oo reer Somaliland yiri waa inaan wax ka qabanaa, and that's freedom and it's good. laakiin de siday doonayeen inay ma noqonayso haddii siday doonayeen noqoto dee maanta waa layna aqoonsan lahaa 20 years later laynama aqoonsan. 20 years 23 years. marka labada men and women, this is a very important quote, so write it down and then someday you might want to think about it. Men and women make their own history, but they don't make it under circumstances of their own choice. Uderia quotation laakiin that's the beginning. marka waad adigoo dhanna ka og inaad garbaduuban tahay oo taariikhda ku garbaduubaysa, haddana dhanna ka og inaad waxoogaa furfuri karto. noloshu waa dagaalkeegu waa sida markaa leadershipkuna markaa halkaas ayay ka soo baxaysaa. marka waxa weeye leadershipku maxay tahay dan? waxa weeye leadershipku amba qof ha noqoto amba group koox ha noqoto. hadiya jeerna waxay u badan tahay inteeda badan koox qof waxa laga yaabaa inuu hor socdo laakiin waa koox team. leadershipku waxa weeye capacity inuu qofku leeyahay amba groupku ay leeyihiin capacity ay ku garanayaan fursadda waqtigaata la opportunity waqtigaa joogta ay ku gartaan daaqada furan ay ku gartaan ay ka baxaan. in other words inay opportunity-ga fursadda arki karaan ay kartida leeyihiin isha ay leeyihiin iyo intelligence-ka fursadda taagan, and then you seize the opportunity markaan waqtiga fursadda qabsato. seize the opportunity. saadama garan tima cade intiina gabayada iyo jecel waxaan filayaa magaciisa un maahay inaad gabada xitaa waxoogaa ka garanayso haddaydaan ka garanaynin shame on you barta. saadama I'm serious barta. haddana tima cade gabayadiisa aqoon dee aniga Somaliland ha iga sheekayna iga dhaaftay maxaa Somaliland maxay tahay barta tima adiga riwaayad baynu isku dhigaynaa. saadama yaa tima cade wuxuu ku leeyahay mar haddaanad hamoon noloshu waa mooyi dabadeed. mar haddaanad hamoon noloshu waa mooyi dabadeed. waxa weeye haddii aanay hamadi ku gelin inaad wax qaban karto ood iska dhaafto oo hay hebelo iska waran wallahi mooyi noloshu waa mooyi dabadeed. opportunities haddaad garan weydo qaadan weydo way ku dhaafaysaa taariikhda adduunyada ku dhaafaysaa. iyo tima cade kulay gabaygu u dheer yahay laakiin dhex galoo barta sida markaa loo fursadda hamadeedii fursadda aad u garanayso deetana aad ku dhaqaaqdeed fursadda qabsato and you capture the opportunity. waa arinta ugu horeysa ee definitionka macnaha leadership. fursaddana markaa waxa weeye waa freedom, waa xorriyadii weeye laakiin isla markaana aad garato limitations waxa caqabadaha yaalla ee ku haya. haddii aanad iska garan dee aad ku kufayso dee amba aad ku jabayso haddaanad iska garan ood iska duusho unte waxaad noqonaysaa markaa dee shimbirtii intay duushay quraarad halkaan saatee maaragtay muraayad saasi aan awgeyn muraayad tahay oo haysata inay dho iska banaantay gig madaxa ku dhufato muraayadii because she didn't see may arag dee maaragtay muraayaddu inay tahay ay tahay wax iyada jebin kara. marka dhanna inaad freedom ka ogtahay dhanna limitationska waa kow. hadday sidaa tahay
maxaa lagu gartaa markaa leadershipka calaamadaha maxaa lagu gartaa ya saansaanta calaamada leadershipka maxay ilaa intaan goor soo gasho ya oo soo yar cadaydo oo timahana soo yar madoobaysto ya wala bartay marka sida timaha garkiyo loo madoobaystay waa dhul kale inooga timi taasay inuu waan yara casayn jirnay bariga hore laakiin imika waa la madoobeeyay ya maxaa lagu gartaa oo soo galay Somaliland baan doonayaa inaan magaalada Hargeysa mayor ka noqdo ya ayaan doonayaa Soomaaliya amba waxaan doonayaa maxaa inaan noqdo governatori barasaabkii inaan noqdo degmada ayaa barbara ayaan doonayaa inaan noqdo amba wasiir baan doonayaa inaan noqdo amba madaxweyne aan doonayaa inaan noqdo amba ra'iisul baarlamaan whatever leadership okay hamadaas way wanaagsantahay laakiin maxaa lagu gartaa hadii lagu kala dadkii lagu kala saaraya hadii kala qof walba qurux badan yahay oo qof walba waa okay haddaynaan yeelana this is the real thing haddaynaan yeelana criteria lagu kala saaro ya marka dambe waxay naga kala saaraya waa qabiil waa marka yadii yeen noqonaysa reehbal baa haystay waxaase oo meeyarka Hargeysa ahay ya oo daanta ka yimid waa marka yagii haddaanu daanta waxaan ka reehbal baa madaxweynaha ahay waa marka yagii haddaanu reehbalna markaas waliba si sarif maysa ya hoosta ka sii sarif taasa marka lagu dhacay hadii aanay jirin criteria kale oo lagu kala saaro A B C Aasha iyo Abdi iyo Maxamed lagu kala saaro mid walba oo soo qoystay hadii aan la jirin criteria the only criteria waxa ay marka reerihi hal isreereeyo marka reerkii waxa taasina waa baroosinka ku aasmaya ma dhaqaaqi karaysid you are finished ma dhaqaaqi karaysid mar haddaad halkaa gasho ma dhaqaaqi karaysid qabiili waxa haddaad gasho leadership iyo qabiil iskeliso ma dhaqaaqaysid maxaa lagu gartaa way fara badan tahay toogu horeysa waxa weeye shan baan idinla wadaagi degdega deetana waan soo gabagabay waxa lagu gartaa qof walba xaq buu leeyahay dadka 3 milyan iyo dheeraadka ee ku nool Soomaaliya ay qaangaarka wixii noqday rag iyo dumar ee aan dambina gelin waxaan filayaa distoorkeenu inuu dhigayo inay xaq u leeyihiin qofku inuu hamad yeelan doono amba mayor ha noqdo amba barasaab ha noqdo amba baarlamaan ha noqdo amba wasiir ha noqdo amba madaxweyne ha noqdo saydoon xaq u leeyahay waa laakiin sida lagu kala saaraya waxa ugu horeeya waxa Ingiriisiga lagu yiraahdo vision waxa weeye aragtida dheer ma uu maxaan ku rahay saaka quraacdii sheekadii maanta war maxay sameeyeen maanta qolooyinkii halka fadhiyay ma taawan laga hadli karo vision ku sanad 10 20 30 ina vision hadla ya oo ishaada iyo maskaxdaadu ay gaari karto waqtiga dadka imika nool xitaa aanay gaari karto hadii kale ma noqon kartid leader calibaha loo yaro waa halka jadka ku iibinayay he can do the same thing so madgar vision muxuu yahay visionku marka isha dheer maxay tahay isha dheer waxa ugu horeysa sidii dhakhtarka waa taqaanaan kelmadda la yiraahdo diagnosis ya dhakhtarka sidii dhakhtarka waqtiga iyo ummadda waxa hor yaala ya socodka dheer ee la geliyo development ee la geliyo waxa hor yaala inaad qaado furi karto oo diagnosis deetana aad calaamadiso halka dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin iyo sida looga baxay diagnosis waxaasa way badan tahay dhibaatooyinku way fara badan yihiin laakiin way kala waaweyn yihiin way kala horeeyaan which one here's the diagnosis what's the most important challenge that confronts Somaliland for example waan weydiiyay markaan madaxdeena iyo dadka markaan la sheegay hay maxay tahay arrinta ugu daran baad marinaysaa wadanka and some of them are brilliant really brilliant and some of them don't know wax kale iyo umma ku sheegayo ankaas oo hay'adda maanta loo sugday so aad garanaysaa and some of them are very good laakiin de waxa weeye visionku marka hore diagnosis-ka inaad samayn karto oo taaban karto booguhu halkay joogaan iyo maxaan ku lahayd boholaha waaweyn ee inahaya iyo silsiladaha lugaha naga iyo sida looga baxo inaad diagnosis-ka samayn karto taasina waxay u baahan tahay aqoon iyo fikrad dheer iyo intelligence ya waan doonayaa ma hadde waan doonayaa anigu markaan xamar joogay doorashada ku jiray waxaan 22 baa yiri madaxweynayaal baan doonayay 22 maalin baan meel iskugu nimid waxaan doonayaa inaan cod qura ka soo saarnaan qof qura oo shariif la tartamo
شريفه نين وناكسين لكن ده ولا حاجة صار سماك وارس ويدين هيا هبل يا دمر نقوم الجيران which is tragic هيا هبل ها والله إن المدح وطنك كان نقضوان دنيا والله بالله وإن إن بدل ما فسوا حميد أوكي لبعتهم محايط هاي ما جي ولا كلا بحي مركي waxaa la ogaaday meeshan toddoba qof oo serious ah jiraynta kale waa iska rawaadiyay anawaan haday dawaa shafarato haday igu dhacdo good haday igu dhici weydana magacayga ma meelaha laga sheegaan that's good too diagnosis ka markaad samayso visionka waxa ku xiga priorities inaad waxi wal calaamadisay dhibaatooyinkii waa kuwa marka inaad tidaahdo priorities haday 3 yihiin 4 yihiin 5 yihiin 10 yihiin ya major problems marka soo faqdo inaad tidaahdo kuwee baa ugu horeeya priorities ani ma leeyahay soo leeyahay waxa lagu yiraahdaa hadaad madaxweyne ka noqon lahayd Somaliland what would you suggest ana maxay tahay analysis yani halka dhibaatooyinka ugu weyn waxaana ugu soo horeeya aniga argument waxay wixii nabadgelyada dhaafsan nabadgelyadu is the basis hadaan taadish jirin wax soconayo kala ma jiro haddaan inta jaamacadda maanta albaabkeega intaan ka baxo markaan shirka dhamaysano aanan bixi karin oo dad iska eegayso qoriga iyo waxaan iska eegayso dee ma socon jaamacadana xidhmi doonto this place will close and marka anu waxaan idhi laba amuurood ayaa priority and we can talk about this one waxa weeye unity-ga Somaliland with the jirka Somaliland still fragile sida loo sii adkaynayo ee xididada loogu sii dheereynayo ee jiridaasi loo sii adkaynayo waa one and two waxa weeye shaqo abuur dhalinyarada jobs for young people waayo haddaan taa dhaqaalaha sida loo dhisno dhalinyarada high schoolka iyo jaamacadaha ka soo baxaya aanay arkayn mustaqbal ay ku noolaadaan ay arkayn waa bambaane irbadii ku jirtay bartanka ay taalo intaas u baahan go like that and explodes Egypt markaad eegaysa wixii ka dhacay spring dadka soo baxay dhalinyarada because they have no jobs markaas ay ku kaliftay nin weyn oo 35 jir inuu hooyadii aabii ku noqdo gurigooda kula noolaado because they can't afford to get an apartment because they don't have jobs what diagnosis your priorities third thing waxa weeye deynad alternative keento vision ka weyn alternative keena isha dheere waxaan macnaynaysaa inay keento alternative ay keento alternative ku yahay mid dadka soo jiita ya dadka soo jiita oo sidaa u horwado soo jiita hadayse markiiba iska seexdanayna wuxuu ku hadlayaa kan iska seexdaan way ku dhamaatay marka de leader man oo kaleesid waa inaad soo jiidataa oo keenta visionku inuu soo jiito qalbiga dadka iyo maskaxdooda inuu soo jiito and then final thing about the vision waxa weeye team fari waligeed wax may dhiqin we know that in Somali proverbs waligeed may dhiqin intay doontaa weynaato intay doontaa yaraato ma dhaqayso marka waxa weeye team inay jiraan hawshan ku wada jirtaan oo qof walba kartideedii hawshii ku haboonayd uu leeyahay taasi waa vision-kii taas second waxa weeye qofka madaxda marka ay waxa ka soo dhex baxay waa inuu geesinimo courage geesinimo waa inuu ileen dad badan baad ku oran doontaa kula doonayo ay kula wadanka kula dhisaya haddana markay yiraahdaan waa deesaa samatar arintan caynkan iyo waxa nagala qabo maya ma suurta galayto saaxiibay ma socon karayso waa inaad yeelataa kaliyo ya courage ya geesinimo aad ku tidhaahdo no this is not good for the country amba ma samayn karo waayo haddaad qof walba ku yimaado wuxuu doonaya aduu yeesho wixii way baaba'ayaan soo dhamaan de mana haysid badee karti aad wax walba qof walba maxaan ku raay wuxuu doonaya aad ku siiso you don't have maraykan maanta ahay soo garmis marka courage geesinimo runta sheegideedu waa geesinimo runtuna waa laba run about facts halka ma quraarad baa jaayta ay ku jirto biyo ku jiraan that's a fact we can debate laakiin runtu hadaynu de wada naqaan runtu waxay tahay oo de wax kale aan arkayn waa de quraarad biyo ku jiraan it's a fact that's true runi waa taas boqolkiiba 70 dhalinyarada Somaliland way shaqalayeen fact ya marka hadda timaado tidaado maya boqolkiiba 70 shaqooyin bay haystaan de labada in la kala saaray noqonaysa facts or truth that's one runtu waa mid labaad waxa weeye waxa ethical
كمد ethics وتقانا سوما ethical إنك وإدب يا أخلاق يرونتو لنا وده قفك أخلاق ده حنا إدب تحنا والقرنية ده قفك على كلنا والقرنية ودقن كل عليه هاي سوقه كلا صار يدك هيكون ethical third وحوي courage مركز صور after vision courage competence كرتي وان دوني يوم مهما قبل كرتا الشقة وريه بلاين إن كاين أنت الشقة وحلا قرا الشقة هلا سيو دم قبل كرام باقور رئيس دم وقبل كرام هذيك لو وحي بس لقور ما يدي ويسلا داعي competence يقف كم مدحضي هنا أما وزير هالنقطة أما مدحوينه هالنقطة أما مير هالنقطة أما university president هالنقطة أما professor وهذا بس الشقة واحد نقطة نقطة شقة سقف كاسي ما قصوا بيحكي كرا competence كي ملك وحيابها الصومالي وين Somali Republic نافية these last 30 years وحشقة قبل كرا يا في الصومالي ولا يمك الله جماعي وحقبل كرا هذا اللي ينكشف كيانا كتتردد هالكاتا لا ترى واحد نقول سألكتر عصب أو ده مرتي يعني وديس لا طبعا والمثل كادان كسي كتتردد هالكاتا Somali الأنوان تايس جاي لارس competence الدنيا ده مكبس سويك سمرة دي لا أرتو incompetent دي نهذا كرتي له هاي واحد تاي بين تاي ولا قاسي جسد لك سلام هاي how are you doing Mr. أنا اللي fourth ثلاثة بس دوي fourth وحوي resolve أتكيسي قفينه لي أتكيسي كنتي بعد شكتي واتكو محن كورا هاي هل كل مرة يبعد عطيسي إذا بتدينا والله تمت dad baa diidi doona taa kartideedina waa leedahay dad baa diidi doona inaad ku adkaysato runta aad ku adkaysato halka la maraya aad ku adkaysato oo resolve ba ingiriiska lagu yiraahdo resolve aad ku adkaysato adkaysi inaad markiiba leeyahay markay afar oday ku yimaadaan ay dhanka kaaga dhuftaan alaabteen isla naqaan aad mar la leeyahay aad u jawaabi karto ku adkaysato and then the final point leadership waxa weeye ethical the ethics waxa ugu horeeyay ethicsna inaad garato xafiiskani inuu yahay mid ummaddu ay leedahay adigu aanad lahayn amaana uu kugu yahay iyaga aad wakiil ka tahay waxa halka u yaalaan ay xaaraanka yihiin inaad sida doonta ka yeesho ku takrifto oo corruption ka la gasho ethical the leadership halkan kaga hado ana waxaan markaa idin leeyahay waa conclusion 1 minute go waxaan oo dhamay maxay markaa u tahay Somaliland relevant how is it relevant to Somaliland xalay waan ka hadlay arrimahaas ugu waaweyn aan isleeyahay way hor yeelan wadanka ragaygiina dumarkaygiina in la helo ya maxaan ku raahay ka dulboodi lahaa in la helo waa challenge keenay ugu weyn waxa kale oo dhan iska daa challenge kaasuna waxa weey qabiil tribalism iyo citizenship labadaas sidii loo kala saaro way isku walaaqan tahay Somaliland right now inta aanu ka arkay way isku walaaqan doonan darso wadanka ku soo koray waan aqaan waligii laakiin arag socodkayga aragtayna waan soo labadaas sida loo kala saarayo isma qaban karaan cali sugle bari hore yiri dabiya dhagax la isku ma dhufteen kala dawray cali sugle ma taqaan ma qashan cali sugle ya adeedan maqal gala oo soo ogaada cali sugle dabiya dhagax la isku ma dhufteen kala dawray dawladii qabiil isma gali karaan Somaliland labadaas sidaynu kala saarayno ya ayuunba Somaliland waxay qabsatayna badbaadin kara oo ilaalin kara wax cusub oo wanaagsan ku soo kordhin kara markaynu labada kala saarayno qabiil iska dhigna meel aynu citizenship oo qofka kartidiisa iyo maskaxdiisa iyo akhlaaqdiisa iyo recordkiisa rag iyo dumar lagu miisaamadii inuu saaqid yahay inuu faa'is yahay lagu miisaam laakiin reehebel bana معدنا أنت سألت لكن داعين اللي بترجع تاسكوي هذا إنه تاه لو ما كان تدق سيتيزن شو هؤلاء هذا إنه قال له تدقاله إنه دس لأن يرد الشقاق شو الله قبض على الله قفانا إنه دس يا هؤلاء بدناك هذا كلام صعب that's the biggest challenge for Somaliland people today conclusion كي يقول مركا وحوي and ordinary يرد إذن خاصة because this is your time dadkii lagu wadankan lagu dhisay salaanka soo koray waa idinka anagu salaanka ma ka sii dhaadhacayna idinka soo koray mar waa in idinka la idin rarto way la idin dhalinyarada lagu dhisaa wadan wala rartaa because they have the energy and the time and
to a certain extent, the intelligence. We have the experience, but you have the energy and the time. Waxaa jira nin Ingiriis ah, this is my conclusion, oo economist ah, oo dhaqaale dhis iyo economics sida looga fikiro noqday the most important economist in the 20th century. Habkaana ma ilaa ma laga dab qaato maalin. Magaciisa waxaa loo oran jiray Keynes, Keynes, Keynes. Yeah? John Maynard Keynes. Book qoray. Waa dadkii adduunyada markii dagaalkii labaad la burburay loo geeyay dib u soo dhisay International Monetary Fund iyo World Bank iyo waxa isaga dhaliyay maskaxdaas. Keynes wuxuu ku leeyahay, let me read this quotation for you and then I'm done. We have, in English, I'll translate it in Somali in a minute. We, dadka waqtigan nool buu dagaalkii dabadeed, generation kan nool, imaka, we have to invent new wisdom for a new age. Waa inaanu abuurnaa caqli cusub iyo murti cusub oo qabanaysa waqtiga cusub. New wisdom for new age. Waxaan ku leeyahay Somaliland people waxaan dilay. I'm one of you too. Waxaan dilay. Exactly what Keynes is saying. We have to create new wisdom for new age. Taa macnaheeduna waxay tahay buu yidhi, and he continues to write. And in the freedom, in the meantime, we must, intaynu taa abuurana waqtigana joognana, and taa ku diyaarinayna hawsheeda galayno, if we are to do any good, oo aynu dadaalkeenu wax dhalin doono wanaagsan, hadda buu ku leeyahay, we must appear unorthodox. Caadadii wixii caadadaynoo ahayd qabiil, caadadaynoo ahayd oo waa orthodox, inaynu noqono unorthodox aan ka soo horjeedsano, troublesome, inaynu ka shaqayno had iyo jeer. Troublesome sida wanaagsan buu jeedaa, yani wax abuur oo wixii hore kala daadiya oo hore u soco. Troublesome oo generationkii hore challenge lagu sameeyo. Maybe even disobedient, markay qaarkood inaana ma yeelin taas, disobedient oo odayaashii iyo dumarkii waaweynaa ku dhaana ma yeelin taas. And then finally, we dare to challenge that future. Ayukuli. Inaynu ku dhacno dare, ku dhici kartaa inaad tidaahdo there's an alternative. Wada kale ayaan marnaa wixii hore raasamaalkiina sii qaadato. Ayukuli. Taas ayna la gudbo. Soomaalida kalena taas la gudbo. Wadamada soo koraya ee hoose waliba khaasatan the least developed country, that's the challenge of leadership that confronts them. Taas horta. Assalamu alaykum wa mahadsanti. I'm going to question my I could say online لكن professor كوفي عصري إن أفكي واحد سؤال قاطع سؤال ما ويديني أمر كتير من سنة. واحد اللي بيحضر إني وتماس دريد هرم مري الفلور بتاع وقت اللي صار من يجوا بقى حيان كوا هرم السنة. ما حيت هاي ما عقبضة يجوا وقت كثير كبير وسامح ديني هرم مران ما أنت كوا هرم مرن هرم مرن هرم مران. عقبته تاجم حتى يوكسر. Very good. نوع واحد general أو كوضع الحياة والدمراس. Universal أو general. وإحنا هو particular أو واحد أجونية. أنا أقول نمبانا هذي لا سوما يعني اللي وانو أكاي at least سوما. عبد العزيز وانين إبراهيم وانين. واحد بان وذاك ناو يونيفرسال كربان وذلان هاي بداربان وذلان هاي وحاصل وذلان ده طبعا عين كاسج ويونيفرسال جنرال لكن انا هو سداسا ادنا وان كلا دونا اسكما ايكي يا وان كير دير هاي ملا ويغير لفويا كمل ويغداير هي وان كوين انا walaalkay عبد السمتر وصدح سنه نور دحيا aad iskugu eeg ayaa hadana different mataanuhu twins are not exactly identical markaad u fiirsato iyaga iskugu dhawaaba mataanade haddana markaad u dhawaateed eegtood aad u eegto way kala duwan yihiin oo waxba ka duwan marka waxna waa general waxna waa particular waxa generalka kamida way yartahay wadan dimuqraadinimo wax la yiraahdo aan fahmin oon dhigan sida loo soconayo dimuqraadinimo dimuqraadinimaduna ay ku fadhido distoor lagu heshiiyay
oo bini aadamka xorriyadooda iyo individual rights iyo waxaasoo dhan dhigaya dadka aan samaysanin way isku wareeraan oo way dagaalamaan oo waa la isdhacaayo waxaasaa soo noqnoqonaya. So the mistakes get repeated again and again and again. So general principle, democratic politics where individual freedom la ilaalinayo qofku xaqa u leeyahay waa kow. waxay isla fahmaan oo kale qofka citizenki oo qabiilkii waxa ay ka talaabsaday inuu qofkaasi rag iyo dumar iyaguna mas'uuliyad ay ka saaran tahay inaad wax ku soo kordhiso dadka iyo ummadda wax ku soo kordhiso. Obligations midna waa rights xaq adigu aad leedahay oo the constitution ku dhigay, midna waa obligations xaq lagugu leeyahay oo dadku kugu leeyihiin iyo wadanka aad ku nooshahay ku leeyahay. maxaa kamid ah waxa kamid ah in oo simple ah cashuurta inaad bixiso oo lagu soo raadsan wartuugii hebel cashuurta mu bixinaha la soo qabto aan la oran ee marka lagu keeno anu ma laga qaado sanad walba $20,000 baa sanadkii laga qaadayo cashuur. soo degan waan bixiyaa 30 years now. laakiin de waxaan helayaan ogahay oo amaanka iyo shaqadayda iyo waxaan dhameynay ku xiran tahay dawladda Mareykanku inay shaqeyso. dawladna ma shaqeynaysan dan cashuur dadka laga qaadano dadku iyagoo doonaya aanay bixin wali bilayska halka maraya yani waxyaabaha inaan baran weey. maxaa kamid ah quickly waxaan tagay Japan baan wafdi geeyay mar jaamacad weyn oo ku taal in fact halkan nuclear ke tsunami-gu ku dhacay magaaladaas way u dhowday 2 milyan oo qof baa ku nool ilaa iyo bad waanti casha la nagay وأنا وفيجي إلى السعودية دين كي جامعة دياني جو فكي من كهري ما صار شيء كيسنا عشان ما كان كنا هودال كنا مخصوص أنا هودال كواحد هرمر تو الدير وده إن ما يكون دوال أركيسا يا ولا like 5th Avenue in New York or Oxford Street in London واحد وصلها صار يسي almost ما يمكن جفلا كيسا واحد صوص صعدة مركا وقار كوي تون كي هبين لما مراسي كل ده هاي وان وان صعنا هودال كان دنيا إنه مطلعونه أنا يا دين كي جابان سدوا صعنا وان اجيت ما هو عسي وان اجي وددي ما سو سocto baabuur yaa soo socdo وانا hadlaya walgaas waan sadaqaaqay wax mareyka waxaan ana jaywalking ya wadadii caqaarnakii cas ayaan sadaqaaqay waayo waa baro soo socdaa mid soo sida okay tabaad nutrition saashadooyin ku dibadda waxa weey Soomaaliya in waxay doognahay in dawlad been wada hadlay oo dhowr jeer bay wada hadleen ilaa imika waxa soo inaan wax la isla garto aanay ka soo bixin marka waxa mudaan in kulba madaxweynaha Soomaaliland kulba afar uu diraa oo dhaxaa afarta hore ma hayaan oo uu diraa Soomaaliland kala la hadlayay Cabdiya Umar oo kala hadla buuraa marka waxa mudaan Soomaaliland wax cad oo ay raacayso ay ka duulayso ajada cad ay ka duulayso يعني سبب ولا تجي لا تفضل بدل ساشي وحوي يضرب قوات بلي سبب احترامي ساشي وحوي إن هذيك الثلاثة هذه وعرفنا سيدنا واحد معقول ولا قصة صاري كذا ولا خلنا السبب لاني سومالي يوم ما صدق بروس excellent question القاصقة إنه هذين هي سوماليلاند هذين يعني إلا سؤال شان لقيت جواب ويا الباب وجوه هي وحوي ما خلت تكتني بينكم سوى ناس ما خلت تكتني هديت سؤال الجنة كل شيء قال يا ولي عد كلام ده كله ما ارتصافص عقابه كلا لبورنا يا مو مركز سؤال هو absolutely brilliant on target أنا مركز صومالي وين إنه مدو من كورنا ياك لكن حسابته إنه وين هالكات سؤال هذا طبعا ياك واحد كوير إذا على أنا وكشيء انترفيو قدام بيجي حتى كشان يوتيوب كوال أكيد دون تانين هالصحة يجا بيجي أريماك قاعد إنه يكون جرته واحد كوير ياك عالن كي ويناي حدقتا برتنك ugu taale buluuga sidataan waliya sheeganaysa amba sharafka iyo xaqa uu leeyahay mariya oo garta waajibkeedin ka saar ama meel iska dhigo wax kala sameeysto meel iska dhigo amba museum amba maqsan lagu xiro tii marka hadii generationada soo socda ay raadinayaan war maxay ahaan jirtay iyagay u taala labadaas ay din hor yaalay ayaga intaas ay doodaydu tay wax qalan ku darsadaa ma jiro amba calanka iska dhiga amba waajibkiisa ka soo baxay aan ku rahay xaqeedii ka saas ina kay noqoto anu waxaan oran lahaa inaga adiguna in xariif abato wadiga soo horeeyay waa boqortii waftiga andirnaan ka fiirsan waftiga andirna yuu yahay ya who are these people wa ko ajendaha waftigu ay qaataan maxay yihiin ay si la tagayaan meesha xisaabtu maxay tahay waana on plan B plan A iyo plan B waa inuu jiraa
haddaad plan B A un haysato waa sidii qof khamaarayo kale oo gurigii iyo islaanta dahabkeegii iyo wiciyadii iyo wax walba intaad iibiso atidaado waxaan rabaa inaan khamaar ka helo ood weydo maxaad yeeli xoolihi dhan reerkina uu kacay you don't have plan B so hadda waa inaan plan B na yeelana plan A hadduu yahay sidaas xorriyad waxaan doonayaa inaan gobonnimadayadii la qaadanay adduunyadu noo shaabadayso oon sidaa ku tagno waa sidaan doonayno and it will be beautiful hadday sidaa inoogu dhacda inaan ku dadaalana wey laakiin suppose it doesn't happen then what when plan B yeelata so tamad marka taasina in la soo saaro plan A iyo plan B waa important was third point dadka Somaliland citizens ka kamid ah idinku kamid tihiin ma hadee wax walba every little detail in loo sheego ma laakiin inay kula ogaadaan khidadaha inay kula ogaadaan ya oo ay hadhow surprise ku noqon kula ogaadaan حق بيوليه ما ولا سنتون ما حق بيوليه that's the right of citizenship إن كل أوجادان و public forum أرماء عين كاسلورون وحي قرصودية هي يرى technical yes لكن مبدأ عين ليسوا أوجادين كل باقي أرنت مرش إلا هذا واحد ضبع أنت يا جيس airport كذا مركز كسر الدكتور إن الله يمنع سوى واحد مسكوجنا وحي كنا متوانا جلوجي هذيك كانت الطائرة دي والله قول يقول لجوجو يبقى That's the one. And then the final point I want to say. Really 2 points. One, أنا وحنا قبا Somaliland ضد كأوجي skills, highest skills. أقول ويعرق تعدنمو ethical skills كعين كاسرة. وين نقدر ضد كتجال كاين وكقيد. ما نقول سعر الجامعية فارحي والبلدعية جاء النور يدعاه حتى كانوا بلا صوت شكل. ما نقول. حتى هالك على تكتني will be defeated. سو تمكن إنكم لما تيجي كرنون الدنيا ما ورن كرنون أنا كريس مالن بان هاي قوني كاره إن الدعوة السنة نو عرون إن الدعوة تاسنا ما سوانش وأنا لطي ما دا ما أقول هاي الباب بنو لطي ما دا أنا واحد كبار my final point I am absolutely convinced تذكر Somaliland حدين ودود إن إسكو هجاجسنا يا وإن قدر تهيك دود إن إسكو هجاجسنا oo reer Soomaali maxaan ku lahay sadran Soomaaliya calankiisa ay soo horfadhistaan iyadoo daawanayso oo doodeen isku hagaajiso we can break their argument in the first 3-4 hours when jibina so damaal gar laakiin waxa weey waayo xaq badan baa xageena yaala anu I have articulated some of those one ka xaq badan baa xageena laakiin waxa weey inaku de waxa la galayaa waa World Cup finalkii oo kala la qaadanaya Soomaaliya World Cup وفاينل كي لبادي تيم قدام بي سو ما قلت هدي انا تريننج كاغا سي سميسن او تيم كو قف والبهلكيس انو جوجين وانا حسابتاس توب كلاس انا عين اديغو حقا يالو dadka soo booqday gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa Professor Ahmed Ismail Samatar oo nagu soo booqday halkan waxaan filayaa Professor anoo kamid ah dadka jaamacadda New Generation kusoo dhawaa ku leeyahay inta ka bacdi waxaan jeclahay inaan share video anigoo ah arday dhigata Human Resource Management and Leadership جعلنا ضدكيga جعلنا جعلنا meel ka tago waxaan jeclahay inaan kiyaad gareeyo usmeeyo xaladay generation xaladay young of arden bariyad Somaliland shaqo kulli wax Soomaalidu wax ma Soomaalidu inay wax ka soo xawdo marka hadda waxay nagu bariyad Somaliland waliba aan jeclahay inaan leadership fiican noqdo maxaad noogu soo kordhinaysaa inaanu حنا ضايعين بص من لك ممكن يقرأنا سين أنا هو أحكي ولي بدي يعني ويدون والسؤال ونكسب جوابتنا وين قابلت هاي هدي أتيهين جماعة Somaliland اللي يرد ده عرقابة جامعة ده كجرا أم بكجرا معقول عمود يأيله كجرا أم بقبيلة أم بكو وين بلند هالك طلابة ده كبلا مساني قصة يلا تاي وحوي halkaad ka galeysaan yani wadanka dhismihiisa aad ka galeysaan oo imika saacadan joogto waxa weeye idinku jaamacadiina waa inaad ka samaysataan urur isku duuban oo markaad xitaa student leadership samaysanaysaan aan xaafadaysnayn waxaan maqlay ardayda jaamacadda X oo caynkaas markaas marka la isku yimaado student organization la samaysanayo leadership la samaysanayo hadii aanu nahay qoladii habar jeclo هذا الله قولي سمرون هذا الله هبريونس وحال لقوا هذي
soo damaalka marka inaad daafteen horta bal intaydaan cid kale waxba u qaban hadda balag intaydaan cid kale waxba u qaban hal laydinka arka markhaatigii idinku inaad iska goyseen dabadii dheereyd ee qabiilka aad iska goyseen hal laydinka taa markaad ka soo baxdaan challenge-kii dadka kale waa diyaar baad uti soo damaalka laakiin haddaad taa ku jirtaan you can't move su-aashaadana waxa weeye su-aal wakti kale inay sugtaa marka anigu taasaan odhan lahaa taa haddaad samaysaan